السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين قازن دونا لبدي 10 يقدم بي ووغا إياذا هذا نتصور عنه. أوكي وو وحن كشاجا إن حقا وحبل لقيتشين كرين حقا إن وحبل لقيتشين كرين حقا إن لقيتشين كرين حقا إن وحبل لقيتشين كرين ساستراتيد وهنا سمايا تصارها وو على صقري لام على صقري ديل على صقري حاسمينيا ووغا ما دام حقا وحبل لقيتشين كرين وين جونك وقرا واللحظة حرف مكمل يعني دائما تقولنا القرية. أوكي لامك هكذا القرية لامك وحوي كان يا مركو جوهر يا قابك مركو برتن كي هي كان ماي مركو برتن كي هي وحنويا كانين حرف كل جبان شيرين مركا حرف كله يعني حرف وكل قسم كرايا لامك وحكم حروفته وحلب كل قسم كرا لكن هذا هو بعد كان كحاجة وجونا وحبل كومدي كرا دنك وحكم كومدي كرا marka laamka wuxuu ekaanayaa marka uu bilowga yahay tusaalahan baa loo ekaysiinayaa maadaama aanu xarafka xaggan ka xiga aan ku dhigsanin waxaa loo ekaysiinayaa marka uu bilowga yahay oo laamka marka la qorayo laamka markuu bilowga yahay markuu dhexda yahay markuu ugu dambeeyo laamka marka lixda xarafi haddii ay dhanka midig ka xigaan laamka mar walba waxa loo qorayaa qaabka bilowga ah oo kale baa loo qorayaa marka sida weyn u fahamsanaata waayo marka dhexda uu ku jiro saas uu yahay laamku waxa waajib ah in wax laga dhajiyaa haddii aan wax ku dhigsameyn hadaba dhanka laga dhajin karo waa in la isticmaalaa tan saas oo kale ah oo ah in dhankan uu wax kaga dhigsami karaa laakiin dhankan waxba laga dhajin karin waana marka ay wowga iyo deelka iyo xagga xiga marka saas weeyaan insha Allah taala waxaan sameeynaa marka wowga waka laamki waka deelkiina waa ku dhajinaysaa marka waladun saas weeyaan. Okay marka uu wowga dhexda ku jiro qaaf baa marka ka horeeya wowga xiga siin baa ugu dambeeya sida sameeynaya qaafki baan soo qorayaa wowga iyo qaafki isku dhajinaya qaafku wuxuu ka mid yahay kuwa waxa ku dhigsami karaan wowga ku dhajinaya wowga waxa uu leeyahay xaggan waxba laga ma dhajin karo marka siinka weyn goonida laga istaajiyaa siinka ugu dambeeya ka goonida san istaajinaya. Okay marka ugu dambeeyo hadaba eraygu marka ugu dambeeyo waa deel baan isticmaalayaa laan baa ku xigaya wowga ugu dambeynaya marka waxaan sameynayaa deelku wuxuu ku mid yahay kuwa aan dhankan waxba laga dhajin karin marka deelka halka dhig laamka iyo wowga isku dhaji waayo laamka ayaa kuwa wax lagu dhajiyo waayo ku dhigsamaya soo wowguna dhankan waa laga dhajin karaa laakiin dhankan may dhankan waa mamnuuc marka saas uu ku noqonaya deel lugun oo kale waan dawliska loo yaqaana. haddaba waxa xiga yada horaan soo dhignay yada sidii baadii oo kale weetaan diray laakiin xarafka ugu dambeeya tan ugu dambaysa baa waxay u ekaanaysaa qaab kale baan ku sheegnay markii aynu soo dhiganayni. Okay waxa la soo qoray ya iyo deel qaabkee aan ka dhigay yada waxa waajibin saa laga dhigay marka yada saasan ka dhigayaa deelka markaas soo markay deelkii waka deelku xaggan iyo xaggan iska leekada xaggan iyo xagga weyn iska leekada sida hadba ka qorto. Okay maxaa xiga deelku markuu yaado ku dhaxayso tusaalahan baan horeysiinayaa baada yaada waa dhexda taaba ugu dambaysa kuwaas la isku dhaji waxaan sameynayaa baada markaas sidaas loo qorayaa baada iyo yaadu isku qaab loo qoraa markay bartanka iyo markay ugu horeeyaan iyo markay bartanka yihiin yaadana saasan soo qoray sidii baadi oo kale marka laba dhibcood baan siinayaa. Okay taadana markaas saasan loo qorayaa marka markay yaadu bartanka ku jirto qaabkaas oo kale baan dhigay ugu taagaya
iligaa yar halkaas saa u taagaya saas weeye haddaba yaad markay ugu dambayso tusaale ahaan siin baa lasoo qoray qaaf baa ku xiga ya baa ugu dambaysa maxaan sameynayaa siinkii baan soo qorayaa siinka saddexdii ilig soo samee qaafkana sidaa soo dhe ya-da haddaba taan idiin sheegay ya-da iyo nuunka way kaga gedisnaayeen markaas waxaan sameynayaa ya-da saas waa markay ugu dambayso bay ka gedisan yihiin markay bartanka yihiin ya-da iyo nuunka iyo taada iyo taada iyo waxaas oo dhan isku mid iyo markay ugu horeeyaanba laakiin markay ugu dambayso ya-da saasay noqonaysaa saas weeyaan okay waxaa haddaba aynu ka baranay xuruufta waa tusaale ahaan hadday 12 xabad yihiin haddii miim ha ta fa kaaf jiim waxaasoo dhan yihiin maxaan sameynayaa miimka markuu ugu horeeya waa soo eeganayaa maxay ka soo eeganayaa waxaa ka soo eeganayaa halkan jiimkaas maxaan soo sameynayaa horta waxaan eegayaa jiimka miimka ugu horeeya jiimkana ugu dambeeya inta kale ee halkaa ku jirta oo dhan dhexda sida loo qoro dhexda ayaad ka dhigaysaa waayo labada dhinacba dhankana miim baa ka xiga dhankana jiim baa ka xiga dhexdaa soo maaha qaabkii dhexda oo la dhaqan miimka maxaa sameynaysaa hadda isu soo eegay qaabka aan ka dhigay miimka horta marka ugu horeysa ugu horeeya miimka saasaan soo dhahayaa haadu markay bartanka tahay haada saasaan dhahaya ku dhajinaya taada markay bartanka tahay taada saasaan dhahaya qaafku markuu bartanka yahay isagana saas intaan baarkii sameeyay waa saa u sameynaya kaafku markuu bartanka yahay saasaan soo dhahaya hay maxaa ugu dambeeya jiim baa ugu dambeeyso maaha jiimka markuu ugu dambeeyona qaabkaasa loo qoraya somaati saddexdaa mise waa 4 weeyaan afartaasba waxaan la dhaqmay markay dhexda ku jiraan ka waran haddii haddaba tusaale ahaan taadaas ku jirta aan intaa ka tirtiro aan u bedelo deel oo kale aan u bedelo taadi ogow marka aan deel u bedelo oo taada meesha intaa ka saaro aan deel u bedelo qaafkaasi ee ku xiga uma qormayo qaabkii dhexda waayo qaafku waxa uu leeyahay haddii erey igu dhegsami kara oo dhankan igaga dhegsami kara uu xaggan iga xigo sida dhexda ha laga qoro dhexda markuu ku jiro oo kale qaabkii dhexda oo kale ha loo qoro haddii haddaba erey aan igu dhegsami karin uu dhankan iga xigo yani waxaan ka warramayaa dhankan maan ka warramayaa dhankan ma aha dhankan haddii iga xigo erey aan igu dhegsami karin sida deelka iyo alifkii iyo ra'dii oo kale qaafku wuxuu leeyahay qaabka marka aan qaafku ugu horeeyo oo kale ha laga qoro waa qaafka keliya laakiin inta kale laakiin waxa weeyaan dhexda qaab kale ah baa loo qoraya mid walba oo dhexdaa ku jirana haddii uu ka xigo xagga midig xuruuftii deelkii iyo ra'dii iyo hadday ka xigaan qaabka marka ay bilaabanayo ereygaasi yacnihii erey walba waxaan dareena marka ugu horeeyo marka ugu dhexeeyo marka ugu dambeeyo waxaad ka dhigaysaa mar walba marka ugu horeeyo qaabka uu u ekaado ama qaabka loo qoro baad ka dhigaysaa waa haddii deel iyo ra iyo za uu midig ka xigo xaraf kasta weeyaan markaa saas weeyaan marka haddii deel halkaas aantaada ku bedelo wuxuu noqonayaa miim iyo haadiisaas bartanka ku jirtaa deelkiina waa ku dhejinaya deelka markaan ku dhejiyo deelka dhankan waa ka dhegeysan karaa deelka aan yaro muujiyo deelkii ma ku dhejiyo qaafka haddaba see qoraya ma sii bartanka may qaafka sii bartanka u qormaayo sida marka uu ugu horeeya ama bilaabanayo oo kale baan qoraya qaabkaasaan ka dhigayaa kaafka sii bartanka ka dhigaya isaga jiimkan marka ugu dambeeya ka dhigaya marka haddii halkaas dhexda uu soo gasho erey ka mid ah ereyadii waxba lagu dhejin jirin xarafka kale ku xiga ee kan ahi waxaa loo qorayaa qaabka marka uu bilaabanayo ereygu tusaale ahaan ereyga saba bilow
iyo dhex iyo ugu dambeyn buu leeyahay saasaan ka dhigayaa insha allahu tacaala markaasaan kusoo afmeerayaa casharkeen ugu talagalay in ardaydu ay ka faa'iidaystaan marka intaasi waxa weeyaan qaabka la isugu xidhxidho ereyada ereyg walba haddaad sida aan kuugu sharaxay aada u baratid waxaan rajaynayaa in aad baratay carabigii qaabka la isugu xidhxidhayay kaliya waxaa ku dhiman kordhiga iyo hoos dhiga iyo godniinka iyo kuwa inaad diiradda saartid. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.